واحد بدن لوسا nin xun baa ku ogeysiiya warwaan iska ilowsiinayni laakiin waad iskentay banaankaad iskentay adig iyo kuwa kale magacaaga kala leh gobolka Jareed caasimadiisu iyo degmooyinkiisu waqtigii xire dhig taayeen waqtigii dadka la dabayay waqtigii dadka xabada sida dhibta yar loogu dhufanayay ninkii guddi fulinta ku jiray ee xilliga tunku cayila sidii dibidii Abdiilay ee adigu ahaa adiga groupkiini bahay kooxdiini dhig iyo cabadaha ayay ahaayeen qadaro war guray ninka la yaraa guray deer war dhagaha miyaan la jarin jeelka miyaan dhagaha lagu goyni muna bari Ibrahim maxad dhaqan weyd xilliga gobolka guddi fulin oo ad ka ahayd ee wasiirka ka ahayd ee ninkii kaliya Abdi ilay koow soo raacay ad ahayd dameerka hadaad nin dameer la tahay maanta miyaad meedhi soo joogsan war faqar miyuu ahay ninkii budka lagu dilay bilcilbuur waadiga bari Ibrahim le faqriyo bari Ibrahim munay miyaa nafta lagaga qaadin bud miyaad ka hadashay maxaad ku hadli weyd waaga yaa 230 xabadood madaxiisa ilaa halka suulka waxaan ka tiriyay 230 hal oo rasaasan ka tiriyay madaxiisa ilaa halka yaa lagu dilay warmaad ka hadashid 16 ruux wiil dhalinyarada ah ee Raasman ee hujur lagu dilay qabla 8 reeyidow ee lagu dilay koor celista warguna gado 23 qof hal aroora inta salaadii subax la soo toosiyay la soo dareeriyay 10 BKM inta dhinacyada laga dhigay miyaan saa loo marin sida 23 ruux ee ay 3 ay qoyska ka soo jeedeen taasoo qof baa lagu dilay awaara lagu dilay yoocala lagu dilay guracan baa lagu dilay dig baa lagu dilay farmadow baa lagu dilay gabagaba lagu dilay danood baa lagu dilay ruux 30 qof dad ku dhow yaa iyagoo nool dhagaxmadu inta leeyahay qota xabaashiina yaa iyagoo nool yaa xabada la dhacayo lagu aasay qaarkood iyagoo nool yihiin baba la aasay wafdub iyo waxaan la helow iyo wafdub dhaxdooda yaa labadii afsay inta habeenimo laga dajiyay yaa inta qoriyo badhidaloola saa loogu dhigay ayaa la laayay ummadda deegaankan Soomaalida oo aynu wada ogsoonayn dhibaatooyinkii iyo marxaladihii foosha xumaa ee muddadii ay nimankii Abdiilay iyo groupkiisa ay soo xukumeen dhibaatooyinkii deegaanka ay ka soo geysteen raggii waqtiga ugu kurkurkoonaa ee systemka ku jiray rag kamida kuwii systemka ku jiray iyo kuwii garab taagnaa ee ugu sacabeynayay dhibaatada shacabka deegaanka loo geysanayo ee ku qanacsanaa oo midiyaha isa soo taagay awgeed ayaan aniguna u soo galay in aan jawaabo aan ka bixiyo taas oo aan u arkay in ay muhiim tahay jawaabahaas in ay kuwa maanta ku habboon in ay yihiin raggii qaarkood intay wadanada shisheeyaha u carareen aan lahayn meelaha ay joogaan uun ama ha ku qarsoonaadaan ama waqtigooduba halkaa ugu yimaado maanta iyagu isa soo saaray waxa ay maaragtay media soo galay aan rabaa inaan qodobada ay ka hadleen inaan waxoogay aan jawaab munaasab ah inaan ka siiyo waxaan rabaa in halkan aan ka soo gudbiyo dhacdooyinka ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degan ay ka dhergsanayeen ee dhibaatooyinkii iyo dhagarihii iyo xinjirihii ummadda ee la daadinayay ummadda hantideedii la boobayay ee foosha xumaa ee waqtigii Abdiilay uu xukumay qofka ninkaas oo taariikhdiisu ay ku suntan tahay dhigiyacab ama dhagar qabe dadka Soomaaliyeed dhibaato aad u fool xun soo mariyay raggii systemka waqtiga kula jiray raggii ugu xoog weynaa oo maanta meediyaha soo taagaya in xishoonayn ee ummadda inay ka xishoodaan ahayd inay media maanta ay soo istaagaan te horta xishoodka waqtiga hore laga waayay maanta inaan dhaho ani lafteeda munaasab iguma aha inay ummadda ka xishoodaan baahid inaan dhaho ma sababtoo haday ka xishoonayaan xilliga hore ayuu haday damiir leeyihiin damiirkoodu danqan lahaa oo ay ummadda ka xishoon lahaayeen kuwii waqtigii adkaa ee ummaddan ay soo gaarsiiyeen iyo dhibaatooyinka ay soo mariyeen
aan ogeyn ee maanta miidiyaha soo istaagay ee qabiila hoose ka hadlaya ayaan rabaa inaan halkan jawaab ka siiyo. waxaan rabaa halkan jawaab inaan ka siiyo ninkii guddi fulinta ugu jiray gobolka Jarar wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil buu ahaa. Khadar Cabdi Ismaaciil waqtigii Jarar iyo wareegeedoo dhan iyo gobolada kalena waan soo gudbi doonaa iyaguna la mid way lagu kala badnaa. Jarar iyo wareegeedu xere dhiigta ay ahaayeen gobolka Jarar caasimadiisu iyo degmooyinkiisu waqtigii xere dhiigta ahaayeen waqtigii dadka la dabayay waqtigii dadka xabadda sida dhibta yar loogu dhufanayay ninkii guddi fulinta ku jiray ee xilligaa tunku cayila sidii dibidii waxaa jira galbeedkan xoolo lagu xareeyo seeraha oo dibida waxa la yiraahdo dibida xaraashka la yiraahdo marka halka tunkay ka cayilaan ninkii waqtigan ogaa ee ummadda dhibaatadii aan ogaa soo martay ummadda deegaanka Soomaalida ee khaasatan goboladan Jarar iyo Qurax iyo Nagob iyo Doolla iyo Shabeelle dhibaatooyinkii mahadhada laga geysanayay ninkii tunka dibida xaraashka ah ku yeeshay sidoodii oo kale ee balka loo dhigi jiray in uu media soo istaago uu dhaho isagoo meel hoose ka hadlaya uu dhaho madaxweynaha maanta deegaanka jooga ayaa wuxuu colayahay ama uu necab yahay Barre Ibrahim war wax guun cid Barre Ibrahim necab waayo war cid Barre Ibrahim wax yeesho waayo war cid dal gulad wax yeesho waayo war cid Reesaaq wax yeesho waayo war cid Cabdillah wax yeesho waayo war cid Barre Ibrahim wax yeeshay ee dal gulad yeeshay ee Reesaaq yeeshay ee Ree Cabdillah yeeshay ee Makaayil yeeshay ee Cabdallah yeeshay ee Bahgari yeeshay Cabdillah iyo adigu ahaa adiga groupkiinni bahay kooxdiinni dhig iyo cabadaha ayay ahaayeen Khadaro maanta leedahay Mustafa Barre Ibrahim xageed adigu Barre Ibrahim wax ugu qabatay Barre Ibrahim tii xabsiyada jeelgoodana aan ugu tagnay meenahayn wartii jeelka buuxday meenahayn war laba ilmo dhan cadaa ku jiray raggan jeelka ugu tagnay oo dhibaatada lagu sameeyay Ilaahay ooga war guray ninka la yaraa guray deer war dhagaha miyaan la jarin jeelka miyaan dhagaha lagu gooynin muna Barre Ibrahim maxad taqan weyd xilliga Mustafa maxanta muxuu yeelay jilbka aad sheegtay anaga aad baan uga xeexayaa inaan jilbka laftiisa magaca aan ku dhufto sababtoo wax badan oo isilowsiinaynay wax badan oo isilowsiinaynay buu nan xun wax badan oo isilowsaba nan xun baa ku ogeysiya war waan iska ilowsiinaynay laakiin waad iskantay banaankaad iskentay adig iyo kuwa kale magacaaga kala leh iyagana xagga dambe ayaan dib ku gaari doonaa waxaan tusaalaan rabaa inaan soo qaato gobolka guddi fulin oo ad ka ahayd ee wasiirka ka ahayd ee ninkii kaliya Cabdi Ilay kow soo raacay aad ahayd dameerka hadaad nin dameer la tahay maanta miyaad media soo joogsanay wariya tusaalayaal baan ku siinayaa war faqad muu ahay ninkii budka lagu dilay bilcilbow waadiga Barre Ibrahim le faqadiyo Barre Ibrahim muu ahay miyaa nafta lagaga qaadin bud miyaad ka hadashay maxaad uga hadli weyday waaga maxaad uga hadli weyday coballe waan keeni doonaa midiyaha macnaha kelmad kasta oon halkaa ummadda Soomaaliyeed maanta aan la soo hor fadhiistay caddaynteedii baan keenayaa buugga aan gacanta ku hayo buugga madow aragtaan dhacdooyinkii deegaanka ay raggaasi ka geysteen baa ku iigu qoran waqtiga loo baahdana wax hadda maanta clip iyo 2 iyo 3 iyo 10 toona lagu soo koobi karo ma aha buugga dhacdooyinka ku qoran waqtigii loo baahdana waan dabadan ka gali doonaa hadii la yiraahdo waxaan rabaa tusaale ahaan inaan soo qaato gobolkaad ka soo jeeday Khadar ee guddi fulin oo ahayd marka gobolka aad ka soo jeedo xinjirihiisa la daadinayay ee dhibaatooyinka aan hadda halkan ku hayo in qaarkood taaban doono laga geysanayay muxuu dameerku ku danqan lahaa Khadaro tusaalan soo qaadanaya qabalaha cobala la yiraahdo yaan tusaale ka soo qaadanaya waxa jooga gabdhihii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii
siligii lagu cunaha lagaga qabtay ilaa hadda uu cunahooda ka sii muuqdo waan soo duubi doonaa waana soo gelin doonaa media iyaga oo siligii cunaha lagaga xidhay uu cunahoodii saa u kala jaray hal gabadha ku jirto khadra la yiraahdo aan ka soo xasuustaa waan arkay 9 jeer baa gabadha lagu celiyay dabitaankii la dabay markaasuu hunguriga cadaankiisii hilibkii intuu xagga u kala tagay iyo halka ka soo baxay gabdhihi Kamaal baa ku jira ragga dadka cobale aan ka hadlayo kal Kamaal ilaa hadda dabankii uu ku yaala calaamadiisii dadka cobale lagu dabay waxa kamid ahaa gabadh xaamila oo ku dhimatay iyadii ilmaheedii waxa lagu aasay xerada ciidanku deganaa dhufays wax jira cagaf wareejisay baa jira xerada dhufayska yaa waqtigii isbedel ku dhacay yaa meedkeedii gabadha lafaheedii laga soo saaray iyadii ilmaheedii calooshoodii lafa isla noqday war dhacdooyinka noocaasa markii deegaanka uu ka dhacay ninku damiirkiisu danqan waayo saad maanta media soo fadhiisataa saad maanta tiraahdaa madaxweyne wax geystay baa jooga oo reer nacab baa jooga warkii reerka nacbaa kolkuu joogay adiga ayaa ka sii nacbaa kolkii waxa soo dhacda aan sheegayo la geysanayo dhacdooyinkan ka hadlayo iyo ficladan ka hadlayo waa kuwa wada dhab ah waa kuwa wada cadcad hal dhacda oo aan cadeynteeda halka soo dhigaynin afkii carabkii kama soo marinayo gabadha xamilada halkaas ku dhimatay higlaley sidoo kale intaas qof baa lagu dilay gusololey dad nool baa liyo qaar wax lagu qabrigii noqota higlaley baa iyadan dib ugu noqon Axmed Gaas inta laga soo qaaday dhagaa baxar oo higlaley la keenay habeenkii yaa 230 xabadood madaxiisa ilaa halka suulka waxaan ka tiriyay 230 hal oo rasaasan ka tiriyay madaxiisa ilaa halka yaa lagu dilay macnaha cadaawada noocaas raggii geysanayay baad ka mid ahayd kooxdii geysatay baad ka mid ahayd waxaad ka mid ahayd kooxdii Maxamed Cumar ma rabin dhacdooyinka dhacay oo dhan ayay ka mid tahay maanta waan soo qaadi ma ihi qof macnaha u hadlaya Mustafa Meehi laakiin dhacdooyinkii foosha xumaa ee markaad gudida fulinta ahayd xigtadaada lagu sameeyay ee ku qanacsanayd ragga sameeyay waliba aad ka mid ahayd ayay ka mid ahayd Maxamed Cumar baa gaari lagu qaaday wiilkiisii gaari baa la dul saar inta la dilay baa gaarigii laga tuuray wariya haddaada ku qanacsanayn oo ka mid ahayn maad ka hadashay xilligii maad ka hadashay Axmed Gaas maad ka hadashay Faysal Maxamed Cumar maad ka hadashay faqad maad ka hadashay guri deer maad ka hadashay waa shakhsiyaad kaalbareys maad wiilkii lagu diray galiil maad ka hadashay warkii gosolay nolosha godadka qodta leeyir maad ka hadashay war maad ka hadashay 16 ruux wiil dhalinyarada ah ee Raasman hujur lagu dilay qabalaha hujur lagu dilay war 8 reeyidow ee lagu dilay kooro celista maad ka hadashay danqati war kuwii bulaala lagu leynayay 3 5 maad ka hadashay damirkaaga mudanqado od ka hadashay xageed uga hadlay raggii waxaan ka geysanayay baad ka mid ahayd war raggaanu haysanaad ku jirtaa waxa soo dhacda oo falxu bulaala wixii laga sameeyay war gunagado 23 qof hal aroora inta salaadii subax la soo toosiyay la soo dareeriyay gunagado oo cusbiyana miyaan salaadii subax inta aqaladoodii reerihii isu dhawaa laga soo kiciyay reerihii isu dhawaa inta laga soo ururiyay 23 ruux salaadii subax iyagoo salaadii tukaday miyaan inta la soo dareeriyay reerka duleedkiisa inta la isu soo ururiyay sida iyagoo quraac la siinayo miyaan 10 BKM inta dhinacyada laga dhigay miyaan saa loo marin sida 23 ruux ee ay 3 iyo 4 ay qoyska ka soo jeedeen xilliga dameerkaaga ma shaqeynayay dameerkaag hadduu dameer aad leedahay tunka kamaada naxdeen sidii dibida xaraashka ee balka loo dhigayay seeraha loogu xilay hantida ummadda yaa seera lagaaga dhigayay Soomaa
kolkaa waxii laga samaynayay jarar iyo qoraxay iyo nogob iyo doolle iyo shabeelle toona kuma danqaynde dibi meel lagu xidhay baad ahayd oo balka loo daadinayay saa qof diig leh ama damiir leh qof in uu caqli ku jiro oo damiir leh dhacdooyinkii deegaanka ka soo dhacay u taagnaa tunka kama cayileen calool weynna ma yeesheen sababtoo ah waxaan xasuustaa hidhaar baa halkaas 9 kilil la isugu yeedhay wax la yacaanaha barwaaqan ku jirnaa nololtii u dambeysay baan ku jirnaa 9 kililow halkaa caanaha ka caba ayaa la yiri marka sidaa bisha sidaa la samaynayo jeel ogaadeen 480 qof baa gaajo ugu dhimatay markii jeelka la geeyay jeelka aan ku xidhnayn anagii iyo raggii faraha badnaa 5600 qof baan jeelka isugu nimid oo ku xidhnay jeelka oo jeelka lagu xidhay 480 baa gaajo u dhimatay markii caanaha hidhaarta caanaha beenta dadka loo shubiyay 9 kale halkan caanaha ka cabala halkan qaar baa furaashiyada isboonjiga wallahi oo billahi oo tallaay magac ilaahay baan ku dhaartay oo waysa qaba markaan jeelka tagnay raggii igula jiray jeelka oo dhanna way ogyihiin waxay warbixin nagu siiyeen ummadan jeelka ugu tagnay ummadii jeelka ku baabaaday ka soo hadhay ummadii jeelka ku baabaaday ka soo hadhay waxay warbixin nagu siiyeen 480 baa dhimatay qaar baa waxay cuneen isboonjigii furaashkii ku seexanayeen ninka warbixinta bixinaya waa ka qabridaar degmada khadar macalin maaragtay degmada qabridaar khadar macalin naftiisa wuu dhageystay hadduu damir lahaa isaga waqtigan aan gaadho kilibkiisaan ka hadli doonaa wuxuu joogaa karin bilceel leh ragga ninka warbixintiisa youtube-kaad ka daawateen baan filaya dad badan baa youtube ka daawada isagoo ka hadlaya dadku macnaha gaajo heerkay gaadheen inay isboonjigii furaashyaday ku seexanayeen inay cuneen halkanna dadka ayaa waxaa loo sawirayey haan inta booyad caanaa lagu shubay yaa allah 9 kililo halkan kaale ka caba ilaa madaxweynaha Djibouti baa loo yeedhan arkay oo la deegaanka Soomaaliya barwaaqan ku jirnaa halkanna cadaab baa ka jirtay intaasoo qof baa lagu dilay awaaraa lagu dilay yoocala lagu dilay guracan baa lagu dilay dig baa lagu dilay farmadow baa lagu dilay gabagabaa lagu dilay danood baa lagu dilay iyagana dhacdooyinkoodii waan tirin doonaa waana gaari doonaa hal baan u dhigi qabalo kasta intii lagu dilay intii la dabay wixii la kufsaday dhagaxmadow dadkii joogay iyagoo nool baa la aasay intaas oo ruux 30 qof dad ku dhow yaa iyagoo nool dhagaxmadow inta leeyahay qota xabaashiina yaa iyagoo nool yaa xabada la dhacayo lagu aasay qaarkood iyagoo nool yihiin baba la aasay ragii falka geystayna midiyahay ku jiraan iyagoo hortay baa la sheegay xaguu jira markaa khadar damirkiisu khadar macallin sax xaguu jira damirkiisu xilliga ma shaqaynayn damiir madaxweynaan soo maray tigreeb waan lacag ku diiday oo 3 milyan oo dollar sayd waa been hadda tigreeb ku diiday Cabdiilay maxaad uga yeeshay wariya Cabdiilay lacagtii ku siinay abqadu ku daadinay damirkaagu soo ku siiyay galaalsho wixii laga geystay baad ogaaday 180 qof oo 6 qoys oo walaal ku jiraan baa la dilay dhagaxmado intaas qof baa nolosha lagu aasay gosolay baa lagu aasay dadkii qaarkood iyagu nool maxaad uga danqan weyday deegaanka madaxweynaha ka soo martay adiguna Khadar Macallin kolkaad leedahay tigreeban lacag ka diiday tii Cabdiilay maxaad u diidi weyday kolku xinjiraha daadinayay kolku xabsiyada dadka 480 ka gaajada ku diiday maxaad u diidi weyday hantiyada akoonka intuu kugu shubo damirkaagu xilliga muxuu de lacagta qaybtaas ku shaqeynayay qaybta dadnimada islaamnimadu iyo damiirka bini'aadanimadu kuma shaqeyneen si gooniyan warbixintaada adiga u gali doonaa iyo damiir la'aantii deegaankan maanta media soo istaagtay adiguna alxaq wala eedaamaya eedanka kilibkan waxaan ku soo koobaya maanta inay dadkii damiir laawayaashaha inay media soo istaagaan oo ay dadka ka xishoon waayaan yaa igu kaliftay inaan meediyahan soo fadhiisto war Khadar Macallin adiga warugaas Maxamed Duulane miyuunahan ugaaski guud ogaadeen muunahan ugaaski beesha ogaadeen muunahan
وكي قبالك أنت قبل الدهر دوش الله قصو صاري لقى حبور لك يعني أباي بانك يرتميلو ككع قاري أبا إنك أب محد عن كوكسيور واحد دعيم واحد سالن ما إيه تلك يجي كوساني محد رتاب كوكسيور يجي وجاس ماذا أوجين وجاس محمد دولني إن أنت قبل الدهر لقى قصو صاري لقى حبور لك يعني ها إن جيب بعد لها انتقني ضرب بان سوقتني استيال بان قدني راشين بان قدني أبا أنا أبا يا أضيال كلا وين أوريد حبور يا حبس جوجاس محمد دولني وجوجين أنت هنقبل كرين نحل أنت صي ورمحادو هذا اللي خير محلنا كل كوجاسكي وقاعدين قبالك اللي سود الساري حط مركو دن قوي والرضياشي قبل مركي لسوق هذه إيه حسن صباح نكي قبل الظهر قرح يدل كده كله صباح مقع حسن صباح مركو رضياشي قبل صدق كان انتو كسوق هذه تلبها لقاه وقار كتشبي وعلى حار انتو كاني برك عاون الف يسوي ريسي بركد ان دفيس كدغتو اي قود مركو لها سغا حبس كان 40 يسي سغا دلال بدبر دلال كي قبل الظهر ميل بان صاري بيغي كي دغخ بورنا ميل بان صاري بيغي يا أنا كي قبل الظهر ميل سو صار كي دغخ بورنا رق بان ميل صاري بيغي حسن داري ninka xas soo baxay faarax deeq muunayn ninkii intuu reeraha gaarka ka qabto qorraxay waxaan ogaa ka sameeyay dhibaatooyinkan ogaa gabdhaha warbixinta waan haynaa halkan ku qoran tahay inta qof gabagabo ilaa alxaar inta qof la dabay inta qof la dilay taysiir mar waa tii la dabay maxaad u danqan weyday khadaro madaxweynaha soo maray baad lahayd xilliga damarkaaga muxuu danqan waayay kolkii gabadha taysiir gabadha la dabay waxaan soo koobaya waan soo gabagabaynayaa firdawso geeliyo gabdhihii sharafta lahaa markii 20 cisho barkedaha dhaxdooda inta la geeyo halka ay ku xidhnayeen lagu ay maxaad uga hadli weydo damirkaaga u danqan waay dhacdooyinkii foosha xumaa maana u gelin weli waxaan ku soo macnaha klibkan ku soo koobaya danood inta laba FCR laga soo buuxiyay danood laba FCR baa laga soo buuxiyay wafdub iyo la helow iyo wafdub dhaxdooda yaa labadii FCR inta habeenimo laga dajiyay yaa inta qoriyo badhida loolaasaa loogu dhigay ayaa la laayay nin korneel oo ku jiray raggii habeenka ciidanka watay yaan jeelgaadeen ku arkay ninkii baa warbixin yaa ii sheegay wuxuu hal gabadha oo lagu yirnay hadii aan khaldanayn wada la sixi doonaaye faarax sheekh ninka weyn odayga ah sodoh bay u ahayd yaa iyadoo dhaawac ka gurguratay wafdub gurgurad ku gashay iyadoo inay dhimatay bay moodayeen kamayna tageen dhalinyaro ka jirtay odayaal baa ku jiray haween baa ku jiray waa laba baabuur oo buuxa oo danood laga soo qaaday oo halka lagu gumaaday xilliga damirkiinu muxuu danqan waayay khadar maxaad uga hadli weyday maxaad danood dhibkana loo geystay u dhiweyday galaasho 180 qof baa lagu dilay maxaad uga hadli weyday dhagax madow maxaad uga hadli weyday damirkaagu muxuu xilliga u danqan waayay damirkaagu xilliga ma shaqeynayay damirka hantida iyo dhulka iyo hantida shacabka boobkeeda ku shaqeynayay damirka tanqashada bini'aadanimada islaamnimada kuma shaqeynay qadar macallin waqtiga waan soo koobaya waxaan ku soo koobaya mar haday dadkii damir laawayaashaha iyagu ay meedaanka iskeeneen waxaan leenahay madaxweynaha iyo xisbiga iyo xukuumadda sharciga naloo horkeenan leen markii horena idinka un baa naga hortaagnaa dadkii dhibaatadaas deegaanka ka geystay warliiskoodii dhacdooyinkoodii halkan aanu ku haynaaye wax naga weydiiya oo ummadana miidiyahan aanu soo gelinaynaa waanu sheegaynaa dhibkii qabal kasta ka geysteen baan sheegaynaa oon soo dhigi doonnaa markaanu soo dhigno dhibaatooyinkay geysteen dadkaasi sharciga hana loo horkeenan leen oo shacabka sharciga loo horkeenan leen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu